kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal gebi ahaantiin baa kusoo dhawaada warbaahinta iyaga. Dowladda Shiinaha ayaa golaha ammaanka dhexdiisa kaga hadashay arrimaha Soomaaliya kadib booqashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Safiirka Shiinaha u fadhiya qaramada midoobay Zhan Juan oo si faahfaahsan uga hadlay arrimaha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday dagaalka ka socda magaalada Laascaanood. Dagaalka Laascaanood ee u dhaxeeya ciidamada Somaliland iyo maleeshiyada deegaanka waxa uu baaqay dhammaan qeybaha dagaalka ku lugta leh in ay si degdeg ah ay xabadda u joojiyaan sidoo kalena ciidamada ay kala baxaan ayuu yiri. Horey ayay saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ay u cambaareeyeen dagaalka ka socda Laascaanood. Bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen in ay aad ugu walwalsan yihiin saameynta dadka rayidka ah ee ka soo gaaraya labada dhinac ee dagaalada iyagu ku dhexmaray halkaasi. Somaliland ayaa heshiis la gashay Taiwan taasoo ka careysiisay Shiinaha iyadoo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad uu Taiwan ka dalbaday in ay ka digtoonaato xadgudubka qarannimada Soomaaliya. Safiirka u fadhiya qaramada midoobay ayaa ka hadlay mowqifkooda iyo sida ay u arkaan Soomaaliya. Waxa uu sheegay in golaha ammaanka in ay ka soo horjeedaan wax kasta oo kala qaybinaya Soomaaliya waxna u dhimaya madaxbannaanida dhuleed. Shiinaha wuxuu horey ugu celceliyay in Taiwan qayb ay ka tahay dhulkiisa. Jamhuuriyadda iyadoo iska madaxbannaanida isugu magacawday ee Somaliland ayaa dagaalka bilaabday. Waxa ay sheegtay in ay Laascaanood kula dagaalamayaan qaar ka tirsan ururka Al-Shabaab. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa markii dagaalka qarxay boggooda Facebook ku soo dhigay sida ay dagaalku ku bilowday. Kooxaha ku sugan magaalada Laascaanood ayaa maanta weerar ku qaaday fariisimo ciidamada qaranka Somaliland ee ku sugan agagaarka magaalada Laascaanood ay tiri wasaaradda qoraal ay shaacisay. Madaxweynaha maamulka Puntland Ciise Cabdulaahi Deni oo ka jawaabay dagaalka ayaa sheegay in Puntland ay qayb ka ahayn dagaalka Laascaanood ka socda balse ay taageersan yihiin mowqifka odayaasha SSC. Afhayeen u hadlayay guddiga SSC oo ka jawaabay eedeyntaas ayaa yiri isna in dadka deegaanka ay la dagaalamaan ciidamada Somaliland. Bilowgii dagaalkan waxaa la isku dayay in dhexdhexaadin la sameeyo si uu u sii dheeraan. Dowladda Itoobiya ayaa dhexdhexaadin ka dhex bilowday Somaliland iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanka SSC si loo soo afjaro colaadda halka inta muddada faraha badan ka socota. Balse ilaa imika waxba maysan u suuragelin in colaadda dagaalkaasi ay joogsato.